waa la ogaan karaa inuu jacaylku hayo. Maskaxdeenna waxa ay 10 jibaar ama ka badan ay ka qaadweyn tahay iPhone-nada casriga ah ee maanta. Maskaxda ma dareento wax xanuun ah. Ma jiro ruux kale oo maskax eg. Miisaanka ugu badan maskaxda qofka waxa uu ka yimaadaa hal dhinac. السلام عليكم. markii aan ka hadlayno maskaxda ama afka qalaad waxa loo yaqaan the brain, waxa kugu soo dhacaya aqli, fikir, xusuus, wax kala garasho, fahan iyo dareen. Intaa iyo in kale oo badan oo ay ka mid yihiin socodka, aragtida, maqalka, wax cunida, neefsashada iyo shaqada jirka oo dhan waxay ka yimaadaan maskaxda iyo neerfayaasha hoostaga. Maskaxda ama brainta waxay ka samaysan tahay billions oo neerfa ah iyo weliba waxyaabo isku xira oo gaaraya trillions. waana cajaa'ibta ay maskaxda bilaadanka ay leedahay, maxaa yeelay waa midda xubnaha bilaadanka ugu awoodda badan uguna xiisaha badan. muuqaalkeena maanta ayaan kugu soo gudbin doonaa 10 shay oo aadan ka ogeyn maskaxdaada ama aadan hore uga maqal. fadlan daawo muuqaalka, page-kana follow dheh, like-na saar muuqaalka, channel-kana subscribe saar, welibana adoo gambaleelka furanaya si ay ku soo gaaraan fiidiyoada aan ka diyaarinno caafimaadka iyo waxyaabaha ku xeeran. Nambarka 1, maskaxdeenna waxa ay 10 jibaar ama ka badan ay ka qaadweyn tahay iPhone-nada casriga ah ee maanta. inkastoo ay jiraan shaqooyin aysan qaban karin maskaxdeenna oo ay qabtaan kombiyuutarada casriga ah, haddana waxaa jira waxyaabo fara badan oo maskaxdeenna ay kaga horumarsan tahay aaladahan casriga ah oo aysan marnaba gaaraynin xikmadda iyo weynaanta abuurka Alle. tusaale ahaan, xusuusta iyo wax xifdinta maskaxdeenna qiyaas ahaan, haddaba qiyaas ahaan keliya waxaa lagu sheegaa 2.5 milyan oo GB inay gaari karto. xogta ku kaydsami kartaa halka taleefannada kan ugu badan uu gaarayo 256 GB. waana dareemi kartaa farqiga weyn ee halkaasi ka jira. tusaale kale ayaa tilmaamaya nin darawal taksi ah oo ku nool Ingiriiska ayaa la sheegay inuu yaqaanay dhammaan waddo kasta oo London ku taal, mid kasta iyo midda bedeli karta, iyo weliba waxyaabaha ku hareeraysan. cilmi baarayaasha ayaa sheegay daraasad kadib in mar kasta oo aad waxbaratid ama akhrisid ay korayso maskaxdaada. sidaa daraaddeed wax akhriska joogtee si aad caaqil iyo caalim u noqoto. Nambarka 2, maskaxda ma dareento wax xanuun ah. waxaa jirta 2 xubnood oo sida caadiga aan wax xanuun ah laga dareemin markii ay wax ku dhacaan, waana beerka iyo maskaxda. si ay xubni u dareento xanuun ayaa waxay u baahan tahay wadooyin ama wax neerfaha gaarsiiya dareenka xanuunka. sidaa daraaddeed labadan xubin ma lahan wax qaada fariinta xanuunka. waxaa tusaalaha nool noqonaya marka qaliimada maskaxda la sameynayo. qofka lagu sameynayo isagoo soo jeeda waa lagu samayn karaa, waana la arkay arrimo noocaasi oo kala. intaasi marka laga soo tago, waxaa jira qofka marka uu cuno jalaato badan ama qabow saa'id ah waxa uu dareemaa madax xanuun. taasina lama micno ahan in maskaxdu ka xanuunayso, balse waa ciriiriga ay dareemayaan xididadeenna iyo halbowlayaasheenna jawaab ka dhalatay. Nambarka 3, maskaxda ragga iyo dumarka meelna waa ku kala duwan yihiin, meelana waa isaga mid. maskaxda ragga waxaa la sheegaa in 10% ay ka weyn tahay midda dumarka, balse caqliga iyo fikirka ragga iyo dumarkuba waa ka siman yihiin. sidoo kale waxaa jira koritaanka dareenka xanuunka waxaa ku badan dumarka marka loo eego ragga. waxaa kaloo jirta in ragga uu kaga adkaysi badan yahay dumarka u dulqaadashada xaaladaha isku buuqa ama stresska. sababta inta badan tan keenta lama oga, balse waxaa jirta cilmi baaris weli la wado oo lagu ogaanayo. Nambarka 4, miisaanka ugu badan maskaxda qofka waxa uu ka yimaadaa hal dhinac. 85% miisaanka maskaxda waxa uu ka yimaadaa hal meel oo qaybta hore ilaa dambe ah, loona yaqaan cerebellum afka qalaad. waana midda qabata shaqada ugu badan maskaxda bilaadanka, keentana guulaha laga gaaro shaqooyinka la qabto sida xukunka, xalinta dhibaatooyinka,
xukunka heelkurka, kontaroolidda dhaqdhaqaaqa xubnaha iyo shaqooyinka la xiriira shanta dareeme dhexdooda. nambarka 5aad, ma jiro ruux kale u maskax eg, waa sida fingerprinting oo kale ama faraha lagu kala duwan yahay bilaadan ahaan. muuqaalka marka la dhaho, ma jiro qofka kale u muuqaal eg maskax ahaan, waxaana keena qofka inuu ka duwanaado kan kale waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin sida uu qofku u koray, sida uu wax u akhriyo ama wax u barto, dhibka uu nolosha ka soo maro, iyo waxyaabo kale oo badan oo qofka ku xeeran. maadaama uu jiro kala duwanaanshahan ayaa waxa ay tahay in mar kasta oo la rabo in lala tacaalo qofka dhimirka ka xanuunsan ama waalan in loo dulqaato loona daaweeyo si deggan oo naxariisi ay ku jirto. nambarka 6aad, jirkaagu waxa uu saamayn ku leeyahay maskaxdaada. mar kasta oo la isku eego xubnaha jirka midba kale waxa uu ku leeyahay saamayn, balse maskaxda waxaa saamayn ku leh dhammaan jirkeenna qayb kasta oo ka mid ah. cunnada aan cunno waxa ay saamayn kartaa maskaxdeenna, sida haddaan khamri cabno uu u saamaynayo beerkeenna iyo maskaxdeenna maamulkeeda. maskaxda maadaama ay oksijiin badan u baahan tahay, sambabka iyo bamka wadnaha waxay u keenaan oksijiin, waana isku xirnaan aan laga maarmayn. sidaa daraaddeed waa u muhiim maskaxdaada qayb kasta oo jirkaaga ka mid ah. nambarka 7aad, iskaanka loo yaqaan MRI waxaa lagu arki karaa in jacayl kugu dhacay ama uu ku hayo. tiknoolajiyadda caalamka waxay marba marka ka dambaysa ku tillaabsanaysaa sare u kac iyo horumar ballaaran, welibana dhanka caafimaadka kuwa loo adeegsado, ha aadaan kuwa maskaxda ama kuwa xubnaha kale loo adeegsado. qalabkan loo yaqaan MRI-ga waa kombiyuutar qofka maskaxda laga saaro markii loo baahdo, waxaana lagu ogaan karaa in jacayl kugu dhacay iyadoo la fiirinayo maskaxda qaybta qaabilsan abaalmarinta, dhiirigelinta, dareenka iyo bulshogelidda, maadaama intaba ay sare u kacayaan markii uu jiro dareenka jacaylka. waxaa jira cilmibaarisyo la sameeyey oo la isbarbar dhigay dad uu jacayl wakhti badan soo hayey, kuwa xiriirkoodu baaba'ay iyo kuwa aan weligoodba samayn. sidaa awgeed kaliya lama ogaan inuu jacayl hayo dadkan, balse waxaa kaloo la ogaaday in mar kastoo qofka uu jacaylku ku dheeraado ay sii siyaadayso qaybta maskaxda qaabilsan dareemadaasi aan soo sheegay. nambarka 8aad, ma soo xasuusan kartid wixii dhacay, balse waxaa soo xasuusan kartaa waxaa xifdisay. marka aad soo xasuusatid wax, ma soo xasuusanaysid sida saxda ah ee wax u dhaceen, laakiin waxaa kugu soo dhacaya ayaa ah wixii ugu dambeeyey dhacdadaas maskaxdaada galay ama ay xifdisay. xifdiska marka laga hadlayo waxaad u baahan tahay si aad wax badan u xifdiso in aad tababar badan siiso maskaxdaada, mar kastana aad isku daydo inaad wax soo xasuusato si aad maskaxdaada tababar fiican oo wax fahan leh aad u siiso. tusaale ahaan, marka aad isku taxallujiso inaadan taleefon nambarkaaga ku seef garayn wakhti badan, maskaxdaada waxa ay baranaysaa inay barato nambar kasta oo laguu sheego iyo qofkii lahaa. nambarka 9aad, waad noolaan kartaa adoo maskaxdaada haaf maqan yahay. waxaa jira qaliin lagu sameeyo qofka qaba qalalka oo la bixinayo kala bar qofkaasi maskaxdiisa. inta badanna dadkaasi waxay yeeshaan caqli dhammaystiran, mararka qaarna waa laga yaabaa inay lumiyaan qaar ka mid ah shaqooyinkii ay qabanaysay qaybtaasi la saaray. waxaa jira 5 kays ama 5 qof oo waddamadaas caalamka qaliin loogu sameeyey carruurnimadoodii, maantana maskaxdeedu ay u shaqaynayso sida caadiga ay u shaqeeyaan maskaxdeenna iyo maskaxdaada. nambarka 10aad, maskaxdu waa ugaarta weyn ee ugaarsata hawada aan qaadanno ee oksijiinka. 20% oksijiinka ugu badan jirkeenna waxa uu ku baxaa maskaxdeenna, marka lala barbardhigo oksijiinka ay qaataan murqaha jirkeenna oo ayagana haya shaqo badan oo jirkeenna ah. 5 daqiiqo oo jirkaaga uusan lahayn wax oksijiin ah waxaa bilaamaysa dhimashada unugyada maskaxda, shaqada jirkana waa ay joogsanaysaa gebi ahaanba. isku buuqa iyo stresska waxaa yareeya sidoo kale inaad oksijiin badan aad qaadatid ama aad samaysid jimicsiga neef qaadashada iyo neefsideynta oo loo yaqaan breathe in and out afka qalaad. ugu dambayn, ku dadaal caafimaadka maskaxdaada, daraasadda, wax akhriska iyo jimicsiga si caafimaadkaaga uu ahaado mid mar walba sare u kacsan. muuqaalkeenna maanta intaasi ayuu ku egyahay qaraabo. fadlan follow page-ka, like saar muuqaalka, subscribe-na dheh channel-ka, gambaleelkana furo si muuqaalada xiisaha leh kuu soo gaaraan mar walba. mahadsanid, soo dhawow.